بسم الله الرحمن الرحيم ومركل إيو معنا عبد الرزاق بريتش كسر لواذا بوجيجا عبد الرزاق بريتش أونلاين وعشرة عن بدنا سوق اللي بوجيجا عبد الرزاق بريتش أونلاين وقلنا تلاقينا الصوماليين كيف يستند كحيث اللغة الإنجليزية وعشرة فريئة أنا قلت لك الأرض والبين وسوق قبت جوجس كيف يستو كلا صعوبة أما بيج كيجا أما برتي ذا يوتيوب كا أما برتي ذا فيسبوك marka si ay uga faa'iideystaan Soomaali badan oo danaysa luqadda Ingiriiska waxa marka ladinku dhiirigelinayaa inaad bal share gareysaan si dad badan oo ay u gaarto casharadan freega ay u gaarto u helaan si ay uga faa'iideystaan anigana aan ajir uga helo waad mahadsantihiin waxa kale oo dhan jirto page kale oo asagana Telegram ka baxa oo asaga aan ugu talagalnay inay dadka raba inay guriyahooda ay joogaan luqad oo min bilow ilaa dhamaad ay bartaana oo runtii qiimo la iska qaadayo taasna aad u la socda iyadana waa idinku dhiirigelinayna iduna aad ka war haysaan homophones waxaan ku sheegnay inay yihiin homophones haddii aan bal soo dhaweeyo kamarada saad u jeedaan ayagu waxa lagu qeexay homophones la yiri erey isku dhawaaqa ah words waa ereyo that are pronounced that kuwaasoo pronounced loogu dhawaaqo alike si isku mid ah but laakiin dhifa u kala duwan in meaning macnihii and spelling iyo hingaadintii bal hadda labada erey ee ugu horeeya hair waa tinta hair tinta waaye waxaa la dhawaaqa marka bakaylaha siiba kan yaryar rabbit bakaylaha waa la dhahaa laakiin hair isagana waa bakaylaha yaryar marka tintiina waa hair bakaylihiina waa hair hal dhawaaqo baad maqlee laakiin macnihii iyo qoraalkii kala duwan mid hore maaragtay tinta waxaad u qoraysaa HAIR midda bakeylahana HARE waka heal ereyga ku xiga fiiri heal waa bogsiin ama daaweyn ereyga HEAL markuu yahay halka HEEL markay tahayna ay macnuhu noqonayo ciribta cirbaha qofku uu leeyahay heal Allah ama hadii bataan heals Allah ereygan kale here waa maqalka fiiri here waa maqalka say u qornay HEAR ayaa loo qoray halka here oo iidan halkan ah halkan come here imo halkan marka waxa la qoraalku kala bartaan erey walba wuxuu yahay fahantaan HERE markuu yahay isagu waa halkan haye erey ku xiga fiiri waa howl waa meel duleelsan howl waa duleel meel duleel ah howl dhaha hadana howl marka la waa jumlo iyo wax dhamaan iswata waa howl waa wax jumlo ah marka w kan damba w u baahan yahay marka midka wax jumlo ama guud ahaan ah howl waa marka w lagu diraa marka uu yahay meel god ah ama meel maaragtay duleel ah w ku jirto marka howl marka dhawaaq waa isku mid laakiin macnaheedu kala duwan awa oo saacadii awa fiiri hada lagu dhawaaqo macnaha saacada waxaad ugu dhawaaqaysaa awa laakiin si loo qoraa waaye waxaan u qoraynaa HOUR waxa anaga aaleen marka waxa yaga iyo waxeena markay tahayna this is our teacher kani waa macalinkeena waxa aan wada leenahay macalinkayaga macalinkeena our waa halka hour oo ha ay ku jirto qoraal ahaan uu yahay saacad we have an hour saacad baan haysanaa to go there in halka ku aadno meat waa hilibka meat waa hilibka laakiin loo qoraa MEAT meat waa marka ka dhigta marka MEET marka ka dhigtana wuxuu ku noqonayaa kulanka I want waxaan doonayaa to meet you inaan kula kulmo marka kulanka marka qorayso double e qornay macnaha one hal way erey kale waxa jirta marka one loogu dhawaaqo oo asalkiisana wuxuu ka yimid in la dhaho win oo guuleysi ah we won waa guuleysanay waa fiir halka oo kale ugu dhawaaqay we won alle fiir waa guuleysanay we won ma macnaha we won waa guuleysanay our team kooxdayadii won way guuleysatay one oo hal ah iyo one oo guuleystay ah waa homophones waa isku dhawaaq macnaha erey u dambeeyay qaybtan waa principal oo markii loo qoro PAL markaad u qorto kan hore B for Ben AL markaad u qorto waa maamulo waa la dhahaa wax muhiim ah waa la dhahaa maamulo iyo muhiim markaad qorayso waxaad qoraysaa AL
principal markii loo qoro kan dambe asagana waa isku dhawaaq isku mid yahay laakiin loo qoro B for Ben LE marka loo qoro wuxuu ku noqonayaa wax la yiraahdo qaynuun ama sharci mabaadi wax mabda wax u ah principle marka loo waa qaynuun ama mabda labadaba asaas loo qaataa waa markuu yahay BLE aad u kala fiiriyo marka maamulo iyo waxaan muhiim ah marka qoraysana BAL qorne okay bal qaybta kale wax yar aan la fiirino qaybtan fiiriyo ereyga qor sax marka la that's right waxaas waa sax fiir that is right waxa sax waa marka la fiiri RIGHT qortay laakiin right qor marka wax leedahay write the lesson fiiri soul marka la qoro oo SOLE laga dhigo waa only oo kale kaliya soul kaliya marka waxaan wax kaliya waa marka leedahay waxa the only okay mudda marka soul only marka ula jeedo SOLE qornaysa laakiin marka ruuxda ula jeedana SOUL my soul ruuxdayda his soul ruuxdiisa SOUL waa marka taas tail markay tahay TAIL marka loo qorana waa dubka ama seenta waa tail haye tail marka laga dhigto mid kala jirto la dhawaaqayda TALE waa sheekooyinka camal fairy tale adil dhaw waa sheeko xariiro tales marka waa sheekooyin tales marka boqosho tail waa sheeko waste waa maxoga ama dhaxda laakiin say u qoran tahay WAIST u qoran tahay waste maxoga ama dhaxda waxa la dhawaaqa marka homophone la ah waste oo wax la qasaariyo don't waste your time waqtiga qasaarin don't waste your time war waqtiga qasaarin okay wait la sugo iyo wait la miisaanka naftigiisa waa wait for me ani sug tell me your weight ishak culayska ka daba qaadana marka culays marka hadda iyo miisaan ka daba qaadana wait way hab wado jid inta waa lahayda laakiin waxa la dhawaaqa oo homophone la ah way miisaamid please weigh the sugar sokorta miisaan way aa ugu dhawaaqaya marka la miisaamo ficilka waay weigtka horena magaci waay week usbuuci waay marka qorto usbuuc ama sitimaan marka leedahay WEEK waay marka week laakiin qof tabardar marka aragto he is weak waa tabardareeyay way qoraalku isbedela WE ma noqonayso EA waay marka qoraalada waa inaad ku barataan WEAK the patient bukaanku is weak waa tabardareeya kaas hore usbuuc ma qoranaysidee kan waxa qoraya maadaama dhawaaq iska mid ah laakiin qoraalkay kala duwan yihiin WEAK qoray marka week qoray ka dambe saas u qoraysaa week marka xunona tabar daran wear xirasho waay wear your clothes wear xiro what are you wearing maxaad xirantaa wear xirasho iyo wear xagee ah where are you going xagee u socotaa mid hada qaadana WH laakiin wear xiro what are you wearing maxaad xirantaa fiir wear la xirto la gashto iyo wear oo xagee ah marka waxa qiyaasaya inaad aad u fahamteen ereyada isku dhawaaqa ah laakiin kala qoraalkii kala macnaha ah oo aan u bixiyay magaca ama loo yaqaan dadka Ingiriiska yaqaanaan homophones maanta waxay ahayd qaybtii labaad intaas aynu kusoo gabagabeynaa fadlan la shirgariya casharka saaxiibada si ay uga faa'iideystaan Ingiriiskan freega ah laakiin qofku u baahan koorso uu qarash bixinayo laakiin nidaamsan oo casharada si ahayd isugu xigo wuxuu nagala soo xiriiri karaa boggeena Telegramka aad baad u mahadsantihiin marka waan soo dhaweynaynaa usbuucii ugu yaraan 2 jeer ayaan idin soo dhigi doonaa casharo boggeyga kala duwan ee YouTube-ka iyo boggeyga Facebook aad baad u mahadsantihiin dadaal wacan iyo ka faa'iideysi wacan